ciidamada booliiska gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeysay howlgal ka waday deegaano hoos yimaada gobolka Sool ayaa waxay maanta soo qabteen khamri dhan 150 dhalo waxaana ka warbixiyay ugu horeyn tirada khamrigan ee la soo qabqabtay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sool oo ay hareera fadhiyaan maayirka degmada Laascaanood iyo barasaabka gobolka Sool kolay saakalkan waxay isugu nimid kalibiran ku qabanayno khamri ciidanku soo qabtay tirada khamriga imka halkan taala marka la isku daro waa 120 mid weey oo 120 mid weey ya hal gaari ya meesha yaala maxkamadana isagana konton mid baa yaala oo nimankii lagu xukumay watay saddex sano lagu xukumay oo iyaguna jeel ku jira marka way ka bixeen marka kuwan way naga ninkii uu baxsay laakiin isagii waa la garanay hadii la garanayna maqana lagu xukumay marka kalena waa la soo xidhaya isagana insha Allah oo isagana waa ku daba jiraa waxaan ka codsanaynaa inaan nala shaqeysaan diyaar baan nahay dadka inaan u shaqeyno habeenii maamulka wasalaam alaykum dhanka kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Laascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool waxayna bogaadiyeen howlgalka ay ciidamada booliisku ku soo qabqabteen tirada khamrigani maanta halkan waxa shirkan loo qabtay in lagu soo bandhigo khamri shalay galab ciidanka booliiska waanu hambalyeynaa guusha ay gaadheen waxaan leenahay ilaahay baa abaal ka siin doona runtii shaqo wanaagsan oo booliisku soo qabteen waxa sida idin muuqata taliyo idin sheegay la soo qabtay khamrigaas dhowr jeer ka dignay qaraar laga soo saaray guddiga nabadgelyadu waxay ka soo saartay warbixin wadogtiin oo dad badan oo loo qabtay baa jira cidii khamri lagu soo qabto sharciga la marinaya علي هذا ندير علي تاني هون كيبل تي في قبل قصول adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida